halkani aynu ku sugannahay waa bartamaha magaalada Mombasa gaar ahaan wadada Moi Avenue taalada iga dambaysa waa faanta maroodiga oo luuqada dalkani looga hadlay Swahiliga loo yaqaan Pembe za Ndovu waxa ay dalxiisayaal aad u tiro badan u soo daawasho tagaan sidii ay ku soo arki lahaayeen faanta maroodiga oo astaan u ah magaalada Mombasa dalkani Kenya run ahaantii taasina waxa ay ka dhigan tahay haddii aadan soo arkin faanta maroodiga oo aadna timid magaalada Mombasa inaadan dalka waxba aadan ka soo arag safarka ay dalxiisayaashu ku tagaan magaalo xeebeedka dalka Kenya ee Mombasa ma ahan oo kaliya mid ku saabsan xeebaha balse waxa ay sidoo kale u tagaan sidii ay u soo arki lahaayeen goobaha taariikhiga ah ee halkaasi ku yaala sida Pembe za Ndovu mise faanta maroodiga Mombasa waa magaalada ugu da'da weyn dalka Kenya waana mid ay ku yaalaan dekadaha taariikhiga ah ee bariga Afrika labadan fan ee astaanta u ah magaalada Mombasa ayaa la dhisay 1950 si loo xuso booqashooyinkii qoyska boqortooyada Ingiriiska asal ahaan foolkan maroodiga waxa uu ka samaysnaa alwaax wuxuuna qorshuhu ahaa in meesha laga saaro marka ay boqorada dib dalkeeda ugu laabato laakiin taasi maysan dhicin maadaama ay astaantan faanta maroodiga ah ku taala dhexbartanka magaalada Mombasa gaar ahaan wadada Moi waxa ay noqotay mid soo jiidasho leh sidaasi awgeed lagama qaadin halkaasi waxa ay noqotay goob aad u soo jiidata dadka ku dhaqan magaalada Mombasa iyo guud ahaan dalxiisayaal aad u tiro badan sanadkii 1956 ayay ahayd markii dawladda Mombasa ay go'aansatay inay dib u dhisto faanta maroodiga maadaama ay markii hore ahayd alwaax hadda waxa ay ka samaysan tahay bir waxaana marsan rinji cad maadaama ay hadda faanta maroodiga caan ka tahay magaalada Mombasa sidoo kalena ay magaalada astaan u tahay ayaa waxyaabaha laga aaminsan yahay ay tahay haddii aad Mombasa tagto faanta maroodigana aadan soo arag inay micnaheedu tahay in aad meelba soo arag sidaasi darteed dadka u soo daawasho taga faanta maroodiga ayaa waxa ay xaqiijiyaan inay sawirro ku soo qaataan goobtaasi faanta maroodiga ee astaanta u ah magaalada Mombasa ee dalka Kenya waxa u dhow beerta Uhuru Garden oo ah beer aad u qurux badan oo ay dadka isaga nastaan beerta Uhuru Garden waxa ay ku taalaa qaybta midig ee faanta maroodiga sida idin muuqata waxaan waqti halkan kula qaadanayaa dadkani ku nasanaya beertan dadka yimaada beertan ayaa sidoo kale isugu jira dad shaqooyinkoodii ka soo baxay kuwa aadaya iyo kuwa saaxiibadood waqti la qaadanaya nimco cusgurow Shakaal TV Mombasa Kenya si aad u hesho barnaamijyo xiiso leh iyo xogo dhammaystiran fadlan follow garee oo ku xidhnow Shakaal TV